filimkeena maanta waxaynu dhexgalaynaa mid ka mid ah sheekooyinka ugu naxdinta iyo xamaasadda badan ee ka dhaca jasiiradda Hawaii. Waa laba walaal oo ay kala fogeysay nolosha, balse geerida aabood ay dib isugu keentay si ay u kashifaan sir weyn iyo khiyaano dowladeed. Diyaar u noqo argos aan naxariis lahayn iyo dagaal foolka fool ah oo u dhexeeya maafiyada iyo laba walaal oo geesi ah oo aan waxba ka baqin. Fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto oo aad gambaleelka ku dhufto si aad u seegin sheekooyinka dambe. Waad mahadsantihiin. Sheekadu waxay ku bilaabanaysaa xaafadda Jaynton, halkaas oo baaraha gaarka ee Walter oo dareemayo in la raadraacayo isagoona cabsanaya ayuu xirmo qarsoodi ah ku dhex tuuraya sanduuqa boostada. Tani waa falkii ugu dambeeyay ee uu sameeyo, waayo dhowr ilbiriqsi kadib gaari faan ah ayaa jiiraya isagoona dhulka kaga tagaya dhiig iyo nafbax. Walter wuxuu u dhintay si shaki leh, balse booliiska waxay u diiwaangeliyeen inuu ahaa shil caadi ah. Dhanka kale, jasiiradda Hawaii, James oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka badda ayaa tababar adag ku siinaya kooxiisa. James waa nin adag oo xitaa askartiisa ugu canaananayo in ay biyaha hoostooda sii joogi karaan waqti ka yar inta uu isaga joogo. Isagoona ku dhex jira howlgalkiisa waxa uu imaanaya warka ah in aabihii la dilay. James wuxuu u muuqdaa mid aan dareen muujin markuu u arko meydka aabihii, xitaa magaca aabe uguma yeero, taas oo muujinaysa buuq weyn oo qoyska dhexdiisa muddo ka jirtay. Magaalada Oklahoma, Johan oo ah James walaalkiis ayaa nolol iska fudud ku nool. Gacalisidiisa Valentina ayaa ka careysan inuu yahay mid aan waxba xasuusan, xitaa dhalashadeeda iloobay. Johan wuxuu helayaa wicitaanka geerida aabihii isagoo ku jira xaalad murugo iyo sarqaan ah. Xilli uu musqusha ku jiro waxaa si lama filaan ah ugu soo galaya laba nin oo gaangiska ah oo mindi qoorta ka saaraya. Raggan waxay rabaan xirmada Walter uu u soo diray aabihii. Halkani waxaa ku arkaynaa awoodda dagaal ee Johan, inkastoo ay raggani tattoos iyo hub ay wataan. Johan musqushu wuxuu u rogayaa goob dagaal, wuxuuna isticmaalayaa alaabta guriga sida hub oo kale, wuxuuna si naxariis daro ah u garaacaya kooxdaas. Dagaalku waa mid dheer aan la sii daawan karin. Ugu dambeyntii, Johan wuxuu ogaanayaa in geerida aabihii ay ka weyn tahay shil gaari, wuxuuna go'aansanayaa inuu aado jasiiradda Hawaii si uu u xaqiiqdo soo ogaado. Markii uu Johan yimaado Hawaii, wuxuu la kulmayaa walaalkiisa James oo ku nool guriga yaraantooda. Waxaa halkaas ku kashifmaya sirta qoyska. Aabahoodii Walter wuxuu dhalay Johan isagoona qaba hooyada James, taas oo keentay in James uu niyad xumo u qaado Johan. Inkastoo ay qoys ay yihiin, haddana waxay u wada hadlayaan sidii cadow. Johan wuxuu sheegayaa walaalkiisa in xalay la soo weeraray, taasna ay caddeyn u tahay in aabahood ay iyagu dileen. Baaritaankoodii waxay ku ogaanayaan in Walter uu gacanta ku hayo qorshe dhisme blueprints ah oo loogu talagalay khamaar sharci darro ah. Waxaa soo baxaya in Marcos oo ah maalqabeen weyn iyo Peter oo ah gudoomiyaha jasiiradda ay isku yihiin hal koox. Waxay rabaan inay burburiyaan tuulo qadiimi ah si ay khamaar ugu dhex dhisaan. Walter wuxuu ogaaday sirtaas, waana sababta loo qaarijiyey. Labada walaal waxay hadda bilaabayaan inay si wadajir ah u baaraan ciddii ka dambeysay dhiigga aabahooda. Waxaa soo baxaya gudoomiye Peter iyo maalqabeenka la yiraahdo Marcos ay ku lug lahaayeen arrintan. Markii ay Valentina keentay xirmada Walter uu boostada ku tuuray, waxaa gudaha ugu jiray xog muujinaysa in malaayiin dollar loo wareejiyey koontada gudoomiye Peter. Maafiyada iyo ciidanka Marcos ayaa weerar ku qaadaya gaari ay saaran yihiin walaalaha iyo Valentina, taas oo keentay eeryasho gaari aad u daran iyo dagaal hawada sare ah oo lagu soo riday helikabtar. Markii ay ka badbaadeen weerarkaas, waxay ogaanayaan in falaashka uu ka kooban yahay xog ku saabsan 12 milyan oo dollar oo lagu wareejiyey gudoomiye Peter. Khiyaanada way sii xumaanaysaa markii Marcos uu afduubto xaaska James iyo walaashooda si uu u helo xogtaas. James iyo Johan iyagoo isgarabsanaya ayay weerar ku qaadayaan qasriga Marcos. James wuxuu si naxariis daro ah u dilayaa gacanyarayaasha maafiyada ah. James wuxuu si foolka fool ah ula dagaalamayaa Nakamura isagoona adeegsanaya seef ilaa uu ka guuleysto. Kale, Johan wuxuu xeebta ku eryanayaa Marcos oo isku dayaya inuu ku baxsado doon. Dagaal qaraar oo dhex maray, Johan wuxuu adeegsanayaa bam gacmeed uu horay ugu soo xaday xafiiska Marcos. Qarax weyn ayaa ka dhalanaya, doontiina waxay isku bedelaysaa dab iyo holac. James ayaa biyaha hoostooda kasoo badbaadinaya walaalkiisa Johan.
taas oo ah markii ugu horeysay ee ay isku muujiyeen jacayl walaalnimo. Subaxdii xigtay, Gudoomiye Baatar ayaa la xirayaa, jasiiraddan waxay dib u helaysaa nabad. Johanna wuxuu gubayaa warqad uu ku qornaa magaca ninkii dilay hooyadiisa, isagoona doortay inuu cafis ku noolaado intuu argoosi ku dhiman lahaa. Halkan ayay ku dhammaanaysaa sheekada filimka, oona baraysa midnimada qoyska in ay ka xoog badan tahay lacag kasta iyo awood kasta oo loo adeegsado. Waa dhammaadka sheekada. Fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto oo aad gambaleelka ku dhufto si aad u seegin sheekooyinka dambe. Waad mahadsantihiin.